maanta Itoobiya waa ku duuleynaa baddaas anaga soo ceshanayno labo xasan waxaa ka codsanaynaa dastuurka laba shay ku daro odaygii 60 sano oo jiro qoriga ha qaato labo dumarka waxaa ka codsanaynaa 120 milyan oo Itoobiyana ay iska celinayeen ragga Soomaaliyeed afar nin afar xaase haloo fasaxo halaasaan ka codsana insha Allah xasanow anina isoo wac dagaalka Itoobiya wallahi billahi tala waan ku raaca wallahi hooyadina waxay dhahay waa ku ducay dagaal gal insha Allah muuse biixi wuxuu u mooday mootali jaaray ani mootaleeyahay mooto waa la iska jaaraa ninka macallinka anoo qona mooto aa ki jaaraa muuse biixi badda wuxuu mooday mootali jaaray laakiin muuse waxaan ku sheegayaa muuse waxa la ciidanka fasax laakiin badda ma fasaxino muuse waxaan ku sheegaynaa adiga laftiga inaa afgambi ku qabsano meesha ka wareejino Soomaaliland way isku soomaysay anaga oo taleen markan waxa ka dhalan karo waa arin mucjiso waay in ooluna bad Soomaali ee leedahay dhanaad waa fasaxay qalaas Soomaali kan dhalanay jiilka abkow anti ilayeen fasaxday aba Soomaaliya waliba daad waxa jirta 8 ma jirta inta Soomaali dhalanay oo meelaha anti ilayeen fasaxday marka muuse hadaa dhimatana godkaasna waa ku soo habaarina la soco hadaa noosna waa ku soo habaarina hadda waa ka sajaan saystay toobada furtay war inaad waa kala wixii waa micnaha waa been wada deegankaygu waxaan dagaalahay maanta kuma cabirigo arinta in macnaha Itoobiya ay sheegeen baddeena ay si kasta ku raadiso waa arin sax ah oo bilowga dambe soo socda weligeedna soo jirta arinta waxay soo bilaabatay 1885 shirkii Berlin waxay ahayd Itoobiya annaga marna saaxiib ma noqon karno ma soo dhaweysan karno waxna ma wadaagi Itoobiya dhulaan wadaagi karin deegaanana wadaagi karin badana wadaagi karin dekadana wadaagi karin Itoobiya wax aan wadaagi karno ma jirto mideeda kale waxaan arkayo dad Soomaaliyeed oo aan isleeyahay wareer waqooyi oo dadka meesha degan oo leh Soomaalida kale maxaa ka galay dhulkan annaga leh waxaan rabnaa ka sameeynaa adeer macaan dhulku waa wada leenahay baddu waa astaan qaran baddu waa hanti ummad Soomaaliyeed ma wax adin kaligiin aan leedihiin waa aayaheena waa mustaqbalkeena Itoobiya haddii ka gataan haddii laga gado ee suurto gasho 20 kiiloomitir oo baddeena kamid ah waxay noqonaysaa in la wareegto gobolada